taliye sare oo ka tirsan ciidanka Kenya ayaa sheegay in uusan khilaafka diblomaasi ee Soomaaliya iyo Kenya wax saameyn ah ku yeelan doonin howlgalka ay ciidankiisa ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya. Gaashaanle sare Masheega Sheekh Qoyani oo ah taliyaha guutada labaad ee ciidanka dhulka Kenya ka jooga magaalada Kismaayo ee caasimadda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in uu weli wanaagsan yahay labada dal isla markaana ay ciidanka ay wadaan islamarkaana ay ciidankiisa wadaan qorshaha wanaagsan ay la leeyihiin ciidanka Soomaaliya kuwa AMISOM. sarkaalkaas ayaa waxa uu sheegay in uusan wax war ah ka helin qorshaha saxda ah ee bixitaanka ciidanka Kenya, waxaana uu xusay in ay sii wadi doonaan dhismaha awoodda ammaanka ee Soomaaliya. wuxuu intaa ku daray in ka ciidan ahaan uusan quseyn arrimaha siyaasadda oo ay arrintaas u taalo siyaasiyiinta. dhinaca kale taliyaha guutada labaad ciidanka dhulka militariga Kenya ka jooga Soomaaliya ka jooga magaalada Kismaayo ayaa waxa uu tilmaamay in howlgallada military la mid yihiin sida dareemaha oo kale isla markaana la awoodo in waqti rasmi ah loo qabto ka bixitaanka ciidanka Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya. wuxuu intaa ku daray qorshaha howlgalka AMISOM ee sanadka 2018 ilaa 2020 qeexaya in ciidanka ammaanka Soomaaliya lagu wareejiyo sugidda ammaanka si ciidanka AMISOM u soo gabagabeeyaan howlgalkii ay u joogeen Soomaaliya. hadalka sarkaalkaas ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo warar hoose oo aan helayno ay sheegayaan in dowladda Kenya doonayso in ay ciidankeeda sida uu dhaqsiyaha badan ugala baxdo Soomaaliya ka hor inta aan la gaarin xilliga qorshuhu ahaa in guud ahaan ciidanka AMISOM laga saaro Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee ciidanka Kenya waxay gudaha Soomaaliya soo galeen bishii Oktoobar 16 sanadkii 2011 waxayna howlgalka AMISOM ku biireen bishii Febraayo 22 sanadkii 2012 kadib markii ay golaha ammaanka qaramada midoobay ansixiyeen qaraar tirsigiisu ahaa 2036 ee lagu fasaxay in ciidanka Kenya ay ka qayb noqdaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya.